mid meelaha Birmingham u dhow waxa idinku salaamaya salaanta islaamka salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh intaas kadib walaalkay Axmed Xirsi wuxuu yiri aniga doctoreesada yaan aqaana aniga xataa ma jecel in doctorees xataa la idhaho waxaan ugu jecelahay in la idhaho maama Maryan dadkana waxaan jecelahay inay maama Maryan ay dhahaan alqaabtan iyo wasiirkan iyo waxaan walaahi qalbigayga hadaad ogtihiin marka ama wasiir la ilaaha ama la sacbinay xanuunka qalbigayga oo xanuunsanay ma qiyaasi kartaan laana waa xil waa mas'uuliyad waa takliif markasta oo xilkaas dartiisa lagu sacbinay waxa waa xisaabtankeeda la socdo marka doctorees xataa ay dhihina maama hadii la ilaaho maama Maryan taasaan ka jeclahay mar labaad waxaan idinkaga mahad celinayaa sida fiican oo walaalnimada ku jirto oo Soomaalinimada ku jirto oo Muslimnimada ku jirto oo aad ii soo dhaweyseen waxaan rabaa hadalka ma idinku badinaay dhowr qodob oo gaagaaban Soomaaliya oo aan aad ula socono akhbaarteeda wax yar inaan warbixin idinka siiyo kadibna aan shaqada aniga aan wado aan warbixin idinka siiyo Soomaaliya waa wada ogtihiin qaarkiin hadday ka imaadeen inta kale way la socdaan akhbaarteeda warnuguma seegana wax walba waa ka ognahay Soomaaliya waa wadan 22 sano ugu dambeysay burburaaye waa wadan hay'adihii oo dhan ay burbureen waa wadan dib weyn ku dhacay dagaalkii kadibna dawladda ku meel gaar oo iska dambeeyay yaa soo maray marka waad qiyaasi kartaan wax walba sida ay u burbureen mararka qaarkood markaan joogay xamar markaan arko macnaha burburka ma ku qiyaasayna guryaha hadda waa la dhisaa laakiin institutionski sida u burbureen markaad aragtid maba dhicina la yiri wadan kasto Afrika dagaal sokeeya ka dhacay xitaa wadan oo institutionskiisa isaas u burbureen ma jiro waxa calool xanuuna ku qabana yaani heerka uu wadanka gaaray markaad fiirisid alxamdulillah waxaan helnay waa ka baxnay waqtigii ku meel gaarka waxaan helnay dawlad oo aan maanta ku meel gaar ahayn yaan helnay oo Ilaahay noo dhaliyay barlamaan wanaagsan golo wasiiro waa la soo xulay walaalkay haday wuxuu yiri wasiirada aqoon walaahi runtii marka laga hadlo 10 wasiir oo 10 milyan qof laga soo dhaxbixiyay dadka ugu fiican ma nihin ratio waa qofkiiba 1 milyan u taagan yahay 1 milyan ugu fiican ma nihin laakiin kulay nasiibka janiska waxa dhici karta dad anaga naga fiican bulshada inay ka buuxan waana ka buuxan bisaraaxa laakiin janiskiya noqday micnaha taas nafteeda waa xil culus marka 10 milyan qof laga soo dhaxbixiyay ma sahlana yaani xilkaas Ilaahay hortiisa marka micnaha hadaad si fiican u gudan weysa nafteeda dhibaatadeeda ay leedahay waxa idinku bishaaraynayaa dawladda Soomaaliya u dhalatay oo xilligan ku meergaalka ah laga baxay inay leedahay hadaf aad u cad hadaf siyaasadeed madaxdana inay yihiin dadkii ugu fiicnaa oo maanta wax hogaamin lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddadii yareed aan la shaqeeyay aniga shakhsiyan waxaan ku qanacsanahay oo aaminsanahay oo hadalka aan dhahay anoo og mas'uuliyadiisa inta ay la egtahay maanta nin uga haboon oo Soomaaliya hogaamin lahaa ma jiro marka waxa lagu shaqeynayaa duruuf aad u adag ruux walba dhinaciisu ka hayaa dawladda madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada golaha shacabka dadweynaha Soomaaliya joogo ruux walba wuxuu ku taamayaa inuu arka Soomaaliya oo la mid ah adduunka intiisa kala horumarka uu garantiigsanayna oo mar un Soomaaliya inay noqoto waxaan la leeyahay failed state iyo inay ka baxdo oo ay noqoto dawlad jirta oo sidii ay ahaan jirta ay ku soo noqoto markaan u soo noqdo aniga mas'uuliyadayda Soomaaliyada saas u burburtay aniga xilkii la ii dhiibay oo wasaaradaha la isku dardaray waxa kamid ah wasaaradihii dadkii indhaha ku hayeen dadkii waxay rabaan service in la gaarsiiyo shacabkii wuxuu u baahan yahay adeeg in la gaarsiiyo wuxuu u baahan yahay waxbarasho
wuxuu u baahan yahay caafimaad waxaa iigu jiray dhalinyaradii iyo sportska dhalinyarada oo aad ogtihiin qiimaha ay ku leedahay bulshada dhalinyaro lahayn waxaan jira inayna ahayn marka wasaarad ballaaran oo arrimihii qoyska iyo macnaha shaqadii iyo shaqaalaha wax badan isku jira laakiin waxaan sameeyay priority waxa aad muhiimka u ah waxa ku siixiga al-aham fal muhiim sida u kala muhiimsan yihiin hadii macnaha aad garan weyso sida waxa u kala muhiimsan yahay waxa dhici karta wixii muhiimka ah inaad ka tagto waxaan muhiim ahayn aad ku mashquusho marka horumarkii aad rabteen aad gaari weyso aniga shakhsiyan waxaan ahay dhaqtarad caafimaad wasaaradaha la ii dhiibeen caafimaadka ku jira saas ay tahay waxaan xooga saaray oo boqolkiiba boqol xoogayga isugu geeyay waxbarashada taasna macnaheedu ma wasaaradihii kala inaan wax ka qabanin laakiin maxaan waxbarashada u doortay maxaana xooga u saaray maxaana uga dhigay tan ugu muhiimsan waxaan rabaa caawa inaan idin la wadaago markii aan xamar aan joogay intii xataa aanan qabanin xilkan xoogaa aan sii joogay maalmo waxaad arkaysaa meel walba caruurtii adduun weynaha markay caruurta intaas la egyihiin waa markay iskoolka ku jireen waa markay wax baranayeen caruurtii ama jidadkay daadsan tahay ama waxay ku mashquulsan tahay waxyaabo aan wanaagsaneyn ay gacmaha kula jirtaa Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa shicibkeeda inuu yahay 10 milyan waxa 18 da'dooda ay ka yar tahay waxaa lagu qiyaasaa 4.4 milyan waa kala bar shicibka Soomaaliyeed waa caruur macnaha waa 18 jir wax ka yar dhalinyaro caruur yar yar waa marxaladii ay wax baran lahaayeen marka waxaad arkaysaa inay waayeen fursad waxbarasho dhabta markaan idinkaga waramo ma jirin xataa hal iskoolna Allah ka dhigay wax dawladda ay gacanta ku hayso waxaa jira waxbarasho yar yar oo private kaas dad aad u dadaalay daladaha waxbarashada yacni wax intii tabartooda ay dadaaleen laakiin ma ayna buuxin karin booskii dawladda marka waxbarasho yar oo private ah jirta waxbarashadaas yar oo private ka oo lacag ah yacni waad qiyaasi kartaan qoyska Soomaaliyeed oo maanta waxay cunaan la macnaha hadana ilmo inayna lacag ka bixin kareen iskool private u diri kareen marka waxbarashadaas yar oo private ka waxa ka faa'iideystay tira aad u yar markii loo fiiriyo tirada caruurta Soomaaliya ku nool hadana ayadana waxbarashadaas yarta ah ma ahayn waxbarasho tayaysan oo private ka ma jirin hal manhaj ruux walba waxbuu keenay ruux Kenya wax ka keenay ruux Sacuudi wax ka keenay ruux walba waxbuu keenay ruux walba afku rabo wax ku dhigaa ruux walba imtixaan ku rabo qaadaya macnaha xataa waxbarashada yar ee jirtayna noocaas ayay ahayd marka waa culays weyn markaad fiiriso caruurtii iskool ma dhigato banaanka ay taagan yihiin ama waxaan fiicneen ay ku mashquulsan yihiin kuwii classroom ku jiray waxbarasho tayo leh ma helaan classroom inaad ku jirto macnaheeda wax weyn ma aha hadii waxbarasho tayo leh aadan helaynin manhajkii ma midaysna yacni wareer badan ayaa ka jiray dhinaca waxbarashada ummad waxa lagu qiimeeyana waa waxbarashadeeda dawladahan aan joogno iyo dawladaha xoogga leh adduunka heerka ay gaareen waxa ay ku gaareen waa dadkooda waxbarashadooda inta ay la egtahay dawladday jahli uga badan tahay waa ka liidataa waa ka hooseysaa waxbarashada hadaan la target gareynin wax kale oo aad sameyn kartid waa wixii ugu horeeyay waxbarashada waxaan soo xasuustay wadankan aan ku noolnahay hadda anaga oo Ingiriiska oo UK dagaalkii labaad adduunka wixii dhacay iyo burburkii dhacay Winston Churchill wuxuu yiri waxba yaan saaran la dhisin London hadundunsanata haday rabto teendhooyin London oo dhan teendhooyin ay noqotay wuxuu yiri waa in wax la baraa caruurta ilmahan wax la bar ayaga saraha dhisi doona maantana London say u dhisan tahay waan aragnay marka macnaha qofka bini aadanka inaad wax barto waxay ka muhiimsan tahay inaad dhisto dabaq ama aad magaalada aad wada dhistid because qofkan aad wax bartay ya magaalada dhisay magaalada hada dhistay oo dadkiina jaahil ay yihiin dhismahaas xataa ma joogay wuu burburaya jahligii markii hore waa burburinay aniga saas darteed waxaan target gareeyay waxbarashada markaan fiiriyay tirada caruurta Soomaaliyeed inta ay la eg tahay sida iskoolaadka uga maqan yihiin sidayna iskoolaad u jirin waxa ii cuntami waayay
wadcigaas asaga ah waan fakaray aadan uga fakaray habeenay maalmaan fakaray dad badan aan la tashtay dalooyinkii la siinay xataa waa ku qanci waayay li'anno waxa aan tiigsanaya iyo waxa la ii sheegay aaday u kala duwanaayeen go'aan qaatay li'anno qofka marka madax laga dhiga macnaheedu waxa waaye madax ama qofka leaderka ah ama hogaamiyaha waa inuu leeyahay vision cad visionkiisaas waa inuu u muuqda marka visionkaas uu u muuqdana waa inuu leeyahay kartida uu resourceska ku dhaqaajin kara in targetkaas la xaqiijiyo aniga waan fiiriyay waan fakaray waan fariistay waxa ii cuntami waaye wax maadaama aan niri 4.4 milyan oo caruur yaa Soomaaliya joogta wax 1 milyan ka yar inaan target ka dhigto targetan dajistay oo ah 1 milyan caruur ah inay iskoolaadka ku noqdaan laakiin jidkii loo mari lahaa iyo targetka sidii lagu xaqiijin lahaa waa wax kale laakiin targetkaas aan dajistay markaan targetkaas dajistay dad badan waxay idhaheen targetkan aad u weyn yahay 1 milyan waxaan ku iri 1 milyan aan qabsaday waliba sanadkan aan rabaa hadaan sanad ku xaqiijin waay 2 sano ku xaqiijina 3 sano ku xaqiijina insha Allah hadduu ilaahay fududay haddaan 1 milyan gaari way nus milyan aan gaari karaa laakiin haddaan hadafkayga ka bilaabo wax yar haddaan ka bilaabo meel weyn ma gaari kari marka targetkaas aan dajistay haddaan idiin sheego aniga siday iigu muuqato wax kale ma arki kari waxa ii muuqda ilmo yar yar Soomaali ah oo boorsooyin dhabarka ku wata oo classrooms waa arki karaa haddaan idin dhaho oo kalaasyadooda galaya oo waxbarasho kalaaskaas dhexdiisa waxbarasho tayo leh ku haysta ma aha ay waxbarasho waxaan rabaa cunugaas classroomka fadhiyo inuu noqdo waxbarashada la baraya iyo manhajka uu dhiganayo waxaan rabaa inuu noqdo qof insaan ah oo mujtamaca wax ugu filan oo naftiisa wax ugu filan oo ah kii Soomaaliya bedeli lahaa wax kale ma ii muuqdaan marka waan qoray waxaan bilaabay inaan raadiyo marka arintaas jidkii aan ku gaari lahaa inaan raadiyaan bilaabay waxaan bilaabay inaan raadiyo partnerska igala qayb qaadan lahaa waxaa imid Nairobi marka say ku bilaabataan rabaa inaan idin sheego arintan Nairobi aan imid arintii waxaan kala hadlay hay-adaha Soomaaliya waxbarashada ka saacida waa UNICEF iyo UNESCO UNICEF bisaraaxa si fiican ay soo dhaweeyeen country director-ka UNICEF arintii aad ugu farxay waa u sheegay waxaan ku iri aniga wax kala oo iqancin kara male waxaan rabaa hadafkayga waxa waaye 1 million children all across Somalia markaan ka hadlaayo aniga shakhsiyan waxaan ka shaqeeyaa arrimo development ah waxaan ka shaqeeyaa caruur waxaan ka shaqeeyaa youth waxaan ka shaqeeyaa dumar oo dhiig bax iyo u dhimanay idinka warrami doono markaan dadkaas ka shaqeeyo qofka Soomaaliga ah aniga geographical border meeshuu ku nool yahay wax macnana ima sameynaysa qiimana iguma fadhisa qofka Soomaaliga aan rabo in service-ka la gaarsiiyo meeshuu rabo ku noolaan kara xamar ku noolaan kara garow ku noolaan kara Kismaayo ku noolaan kara Hargeysa ku noolaan kara aniga cunug Soomaaliyeed meeshuu ku nool yahay ima kala xigo hooyo Soomaaliyeed ima kala xigto marka dadkaas ay muuqdo arintii aan kala hadlay UNICEF waxaan ku iri aniga muku dhahay South Central aan u socdaa all across Somalia in la gaarsiiyo yaan rabaa waana intaas marka bisaraxa si fiican ay soo dhaweeyeen nin aad u wanaagsan yaa regional maaha ee country representative ka Soomaaliya Nairobi u fadhiya mar dhowna xamar u soo guuri doona markaan aad u sheekaysanay horta wuxuu yiri waxaan ballan qaaday inaan xaqiijino arintan inay dhacdo ilmahaas inay iskool galaan kadib wuxuu ku qancay wuxuu yiri after this cudurdaar aan Nairobi ku sii jooga malaha xafiiskayga waa inuu xafiiskaaga ku dhiganaado waa inaan xamar soo guuraa arintii waa sii qaadnay waxaan kala hadalnay EU-ga oo ayagana ku bixiya funding dhinaca waxbarashada waxaan la hadalnay UNESCO
dadka aad la hadlaysid markay ku arkaan waxa aad ka hadlaysid inaad ka run sheegaysid wax maslaxa gaar ahaaneedna adiga aadan wadano maslaxa guud iyo dadkaaga inaad dhib ka bixiso inaad u socotid wax cad oo qoran markaad wad meel kasta oo tago ayadoo qoran aan wataa oo wax qoran aad gudbin kartid sida aad wax u rabtana adiga aad u sheegi kartid dadka xitaa waxay diyaar u noqonayaan inay ku dhageystaan waxaan arkay hay'adihii Soomaaliya imaan jiray waa la imaanaya ruux kasta Soomaaliya u imaanaya laba hay'ad ya 3-4 hay'ad yaa waxa dhici karta 1 kilomitir dhexdiisa service inay ka dhiibayaan service isku mid ah waa service isku mid ah isku wixii yay 1 kilomitir meel ah ka dhiibayaan qof ay kala tashteen male service kaas ma loo baahan yahay kii aan ugu baahi badnayn ma yahay meesha nafteeda aad joogto ma looga baahan yahay shaqadooda ma ahayn waa u sheegnay waxaan ku niri wadanka annaga iskale hadaa rabtid inaad isaacidid wixii aan ku sheega baahida ana aqaan meesha looga baahan yahay ana aqaan hadda xamar dhan kilomitir 4 ee alaabta isugu timid serviceski oo dhan nooradka xamar oo dhan waxba kama jiro marka annagiya marka hadda waxaan bilownay inaan u sheegno qofkana markaad u sheegto aniga sidanaan wax u rabaa waana aqaana anaana mas'uul ah waa ku dhageysanayaan waana ka maqlaayaan wax meel kasta aan tag waxaan u soo qaataa tusaale waxaan ugu soo qaataa tusaalaha Soomaaliya waa sida ruux bukaana aniga waxaan dhahaa waxaan ahay dhaqtarad ruux bukaana markuu ii soo galo su'aasha ugu horeysa aan weydiinayo waxay tahay maanta maxaan ku qaban karaa markaas ruuxii bukaanka ah wuxuu bilaabayaa inuu ii sheego xanuunka haya iyo sida loo hayo kadib markaan baaro oo aan ogaado xanuunkiisa waliba anigoo la tashanaayo xataa qofka bukaanka wuxuu kaaga baahan yahay communication and coordination inaad samaysid oo asaga xataa daawadu qaadan lahaa sidaad u siin lahayd inaad kala tashitid waxa imaanaya inaad daawada siisid Soomaaliya waxaan dhahay in this case waa bukaan aan la wareysanaynin qof walba waa imaanaya ana aqaano macnaha waa bukaankii oo la weydiinin jiradiisa oo asagoo laga yaabo madaxa in laga haayo la siinay daawo wax kale u roon marka waa u sheegay waxaan ku dhahay taas ma soconayso annaga naqaano Soomaaliya baahideed aniga waxaan u baahanahay marka waxaan arkay dadka waa bini aadan hay'adaha ku saaciday waa bini aadan adiga sida aad wax u rabta iyo capacity-gaaga awoodaada iyo inaad fulin karto mashruuca iyo kugula dhaqmayaan waxaan ka helay soo dhaweyn aad u weyn aan ka helay ilaa heer xitaa country director-ki xamar uu iigu yimid ilaa heer hadda waxaan joognaa hay'adihii ay nagu tartamayaan UNICEF ay leeyihiin annaga qaadanayna annagoo ogeyn qofka la hadlina waxaan arkay UNESCO oo maalintii hore Nairobi aan kula hadlaayay xoogaa yacni oo hadalka asaas iska ahaa markay arkeen asaga country representative-ki UNESCO uu soo duulay wuxuu yiri ilaa inaan wasiirada arkaan raba xamar uu igu yimid kulligood xamar ay noogu wada imaadeen barnaamijkan inay nala qaadaan waxaan u sheegay marka oo roolka aniga aan ka rabo Soomaalida waxaan u sheegay xitaa hadiidna idinka waxba ila qaadeen Soomaaliya dad ayay leedahay resources ayay leedahay human resources waxaan ku yiri Soomaaliya waxay diyaar u tahay haddaad dhahdaan waan bixinaynaa shilin kasta oo bixisaan shilin inay ku maaj gareeyaan markaad wadankooda inay dhistaan Soomaali waxaan u sheegay inay diyaar u yihiin waxaan u sheegay iskoolaadkii Soomaali iska wax u qabso wax la dhahay inay ka jiri jirtay haddana la soo nooleyn kara tuulo kasta iyo degmo kasta haddii loo keeno materialka wax lagu dhisay inay ayaga wixii shaqaalihii xataa tuuladii ay sameyn karta ay dhisa karta waxaan u sheegay sidii anaga shaqada qaranka ardayda aan u noqon jirnay inta arday Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool oo jaamacadaha ka baxay ee kollejyada ka baxay inay diyaar u yihiin inay soo noqdaan oo ay national service wax ku baraan carruurta Soomaaliyeed marka qofka markuu ku arko inaad wax haysatid yacni heer waxay gaareen ay si fiican noola shaqeeyaan iyo walibana waxayna siiyaan commentooyin oo ah partnerka ugu dhib badan aan la shaqeynaa tihiin yacni maalintii 10 email aan u diraynaa wax haddii la isku ogyahay
ay ka soo jawaabi waayaan saaka galabtii midan ka daba geynayna waxay ictiraafeen waxay dhaheen partner idinka dhib badan weligan lama shaqeynin laana wixii hadaan la daba taagneen yani ma soconaysa shaqadii marka annaga marka Soomaali ahaan waxaana saaran mas'uuliyad ugu weyn ilaahay hortiisa mas'uuliyadana saaran ummadeena horteeda mas'uuliyadana saaran caruurtaas waxay noqon kareen ilmaheena hadda iskoolada ay ku jiraan UK jaamacaday dhigtaan nolol fiican kuweenay noqon kareen laakiin nasiib chance anaga ilaahay intuu na keen ayagana xaqu ku hay ilaahayna nama kala jecla marka waxaana saaran mas'uuliyadaas oo ah ilmaha Soomaaliyeed inay iskool ku noqdaan Soomaaliya in nabad laga helo oo stabilization ka macnaha meel xasiloon oo degan inay noqoto kulligeen mas'uuliyada naga saaran laakiin dibka ugu weyn ee naga haysta hada Soomaali waxa dhici karta hadaan dhahna hal tabaruc waa tabaruc karan laakiin waxa ka muhiimsan wadanka in la xasiliyo maxaa lagu xasilin karaa wadanka 10 wasiir iyo madaxweyne prime minister iyo xogaha baarlamaanka wadan mana xasilin karaan mana dhisi karaan run markaan soo sheegno wadan dadkiisa dhisi kara wadan walba waa dadkiisa Turkiya markaan tag waxyaabaha aan la yaabo waxa kamid ah iskoolada la geeyay iskoolaadka aan la yaabo waxa la ilaahay dhulkan gabara ku tabarucday isbitaalada tujaarnin oo saas hebel ah yaa isbitaalkan dhisay yani dadka waxay qaateen ownership-kii inay wadankooda uu yahay inay dhisi karaan anaga culture-kaas ma lihin dhisidii xaqaba ii dhig dhibka kala waxba ma kala qarsanayno isku hadafaanahay dhibka kale haysta waxay tahay dawladdan wad ogtihiin siday ku timid waa dawlad tacbaan ah waxba ma la kala qarinay dawladdan madaxweynaha maalintii xilka uu la wareegay hal shilin khasnada kuma jirin ilaa hadda idin dhaho mishaar ma qaadano aniga waxaan ka naxaa ani iska manixi laakiin shaqaalaha 2 bilood shaqaalaha markasta subaxii markaan soo galo shaqada joogo duhurkii joogo oo mishaar qaadanin ninka shaqaalaha oo 2 bilood mishaar qaadanin oo ila jooga aadan uga naxaa dawladda waxay ku soo toostay xilli duruuf adag ay jirto waa bini aadan malaa'igna ma aha qaladaad xataa dawladda waa ka iman kara qofkii Soomaaliyeed roolka aan uga baahanahay ama dibad ha joogo ama dal ha joogo nabadeynta inuu ka shaqeeyo in la isu cudur daaro in la isu soo dhaweeyo dadka walaalaha ee Soomaalida in la isu soo dhaweeyo ani caaw hadaan hadlo bini aadan ahay kelmad qalad carabkayga waa ka soo bixi kartaa madaxda sidoo kale in loo fasirto wax fiican in la isu keen in qof walba propaganda fiican inuu faafiyo bilcaks Soomaalida isla markii waxa la bilaabo propaganda oo mucaakas ah okay dawladda tacbaan way haday dadkeedii qaban waayaan joojin waayaan waa dhacaysa runa idin sheegaya haday dadkeedii ka hor imaadaan ma taagnaanaysa laakiin dadkii Soomaaliyeed ma fahmi waayaan caruurtaas rafaadsan jidadka daadsan maslaxadooda qabka iyo kibirka iyo anaa ah inta la iloobo for the sake of hooyada dhiig baxayso baadiyaha ku dhimanaysa Soomaaliya statistic ahaan waa wadanka ugu sareeya oo dumarka ay u dhintaan uurka iyo umul raacista Afghanistan u sareysay Afghanistan on track ay noqotay Soomaaliya waa off track hatta South Sudan iyo Afghanistan naga fiicnaaday in aan badbaadina gabadhaas dhiig baxa u dhimanaysa in aan badbaadina ilmaheena ma u midoobi karnaa inta la isu fiirsanayo isla markii dacaayada la bilaabay ana hadda xamarka imid dacaayada la bilaabay dawladdu waa isku xuntahay madaxweynaha barnaamijka waa maalin walba isla fadhiyaan waligood hal maalin isma khilaafin anagii ogeyn madaxweynaha prime minister ra'iisul baarlamaanka waligood hal maalin isma khilaafin aniga khamiistiyaan la fadhiyay madaxweynaha Xasan Sheekh jumcana waa soo dhoofay wax haba yarate khilaaf ma jiro duruuf adaga jirto duruufta sidii looga gudbi lahaa yaa laga wada shaqeynaya marka waxa umada Soomaaliyeed waxa ugu weyn aan ka codsanay leeano lacag iyo iskool iyo dhismo wuxuu imaadaan nabad markii la helo nabad si lagu helo kistan yar ee hadda jirta ee dawladnimada ruux walba inuu taageero waxa arkaysaa wariyaasha saxaafadda waa joogan intay wax toosin lahaayeen su'aashay ka xunta ama ka qalafsan tahay yaa madaxdii la weydiinaya
معناها صحافة دور كذا صحافة دور كذا إنه واحد استيهد إنه واحد جسيهد وبساديد على سوق رمي هاي برامج شركة اسكو كعسن ماشي وحلا حاجين لها مركا هاد عاوة أنا قعدسي هو يدا ليك بحيسة سي أن أقارسينا سيرفيس المهن ضيعان سي اسكول أن أقفرنو انت خلافات كاس إي وحاسي لإلوبو Somali for the sake oo cunuga Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed qof walba qabkii ku jiray intuu xagga dhigto taas inta loo midoobo dawladana hala taageero garbaha laga gala dawladan ma xoog badna dawladan shilin qasnadeeda kuma jirta annaga wali shilin mishaarna laba siinin hadii dadkeeda ay taageeri waayaan hadee iska daba wareegi baa looga jiraa hadii isku daba wareegas hadee xal la moodayna hadee taas waa wax Soomaali u taalo marka hadaan u soo noqdo marka waxa aan ka rabo si iskoolaadkaas aan ku furno waxaan ka rabaa dadka wax walba aan ka rabaa ilmaha Soomaaliyeed si aan ku badbaadino waxaan ka rabaa aqligooda waxaan ka rabaa taladooda waxaan ka rabaa jeebkooda inay gacanta galiyaan waxaan ka rabaa xoogooda waxa soo dhan aan above all waxaan ka rabaa inay ka shaqeeyaan Soomaaliya inay nabad noqoto because haday nabad noqon weyso oo dawladda la taageeri waay oo dawladda garbaha laga gali waay oo dacaayada la joojin waay waxba ma toosayaan marka hay'adihii aan u faangnay oo aan leenahay Soomaali ayada wadankeeda dhisanaysa haddana ay noqonin Soomaali ayada wadankeeda duminaysa haddaan barnaamijkan marka aan wax yar idin faahfaahiyo barnaamijkan oo aan rabno 1 milyan oo caruur oo Soomaali ah oo laakiin Soomaali oo dhan ah inaan ilmo iskool u dirno wuxuu leeyahay maraaxil kala duwan maraaxilkaas hadda qaybtii koobaad oo inaan mobilizationkii inaan sameeyno lacagtii inaan raadino wixii waa noo socotaa waxaan sameynaynaa mapping oo ah مثلا magaaladaas meeqa iskoola ka jirta maxaa ka maqan xaafadda iskool la'aan ah inaan baahidiisay meesha baahida badan jirto aan geyno resources badan wixii mappingkii waa wadnaa hadda waxaa noo socda shaqo badan waxyaabaha aan achieve gareen oo aad ku farxi kartaan waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada horta waxaa la dhahaa agaasinka waxbarashada laano hal wasaaradda ay noqotay wasaaradii bismillah waxaan ku guuleysanay daladihii waxbarashada oo dhan iyo inaan isla fariisano waxaan ku heshiinay manhaj midaysan September iskoolaadka Soomaaliya inuu ka baxo manhajkaas midaysan hadda waa laga wada shaqeynayaa iyadoo laga wada shaqeynayo ana soo baxay oo DG-ga iyo daladihii iyo wixii shaqadii aan noo wada socotay manhaj midaysan ayaa September iskoolaadka laga bilaabi doonaa hadii Ilaahay idmo ilmaha September iskoolaadka galayana oo manhajkaas midaysan dhigan doono hal imtixaana Soomaaliya dhan la qaadi doona hal shahaada soo bixi doonta sahal kuma imaanin xataa daladaha waxbarashada qancintooda intay naga qaadantay Ilaahay ogaa wax badan ee wadan ka soo shaqeeyeen laakiin hadda waa isla shaqeynaa waa isu imaanay taas waa noo socota oo curriculumkii dadkii ka shaqeynay iyo examination boardkii iyo wixii hawshaas way socotaa hadda iyadoo socota ana ka soo tagay waxa kale marxalad waxa noogu jirta oo ah macallimiintii May waxaan u maleynaa May inay tahay waqtiga oo macallimiinta la recruit gareynay ayadoo aan u kala qaadnay sanadkan waxaan rabnaa macallimiin aad u badan inaan helno wixii macallin ahaa ee joogay wadanka waa isugu yeereynaa macallimiintaas qaar training gaabana la siinayaa isla markaas waxa barbar socdo teachers training oo 2 sano ahna waa barbar socota mid degdeg ahna oo macallimiintii hore loo sameeyay si ay waxbarashadu ugu noqdaana waa jirtaa waxa kale oo aan qabanaynaa May hadii Ilaahay idmo National Education Conference oo ah shirweyne oo aan u qabanayna educationka Soomaaliya dibadda dalka badadan ka casumi doonaa experts aan casumayna 2 maalmood u socon doona wixii ka soo baxana waxay noqon doontaa wax yaani oo aan ku dhaqano oo aad loo qaado oo muhiim ah noqon doontaa marka macallimiintaas helno macallimiin waa adagta hadda sara waa la dhisi kara laakiin macallin inta Soomaali joogta hadii la isu keeno xataa baahida
ما دبولي كران انت تريننج ونص عضو faculty of education inaan furno sanadkan aad u rabnaa jaamacadii ummadda ma jirto laakiin jaamacado kala jira oo wax soo saara macallimiin soo saara inta teachers training ka socdo macallimiintii horena training gaaban in la siiyo inay waxaan rabnaa qof kasta oo Soomaali ah oo tabaashir qabsan kara meeshuu joogo inuu ka soo dhaqaaqa oo uu diyaar u noqdo ilmahaas inuu wax baro oo ka qayb qaato marka mashruucan marka maadaama macallimiintii la sii tababaraayo oo aan rabnana tuulo walba iyo gobol walba inaan macallin geyno waxay noqonaysaa qof kasta oo tabaashir qaadi karo inuu iskeena isa soo xaadiriyo si maxay ahayd ilmihii Soomaaliyeed jahliga looga bixiyo sanadkan marka waxaan haysanaa barnaamijka 3 sanana waa noo qoran yahay sanadkanna waa noo qoran yahay waxa sanadkan la sameeyay hadii Ilaahay idmo sanadkan haddaanan qaldamin waxaan u maleynayaa sanadkan 900 oo iskool aan rabnaa inaan furno hadii Ilaahay idmo 900 oo iskool waxay isugu jiraan kuwa oo rehabilitation hadda waa ku socdaa waa la dayactira iskoolaadkii hore xamar oo kale 92 iskoola ku taalay qaar waa dayactiran yihiin waa noo diyaarsan yihiin qaarna hadda la wadaa iyo iskoolaad cusub waxaan dhisaynaa sanadkan hadii Ilaahay idmo 100 iskool oo laakiin la kala qaybinayo iyo qaarna waa temporary ilaahu teendhaha noqoto cariisha noqdo wuxuu rabaa noqdo laakiin waxaan rabaa cunuga inuu class ku jiro waxaa noogu jira dugsiyaalkii dugsiga ilmaha in loogu geeyo macnaha documentiga soo qoraal ahaan haya wuxuu u kala baxayaa qayb oo preschool ah marka anaga preschool waa dugsigii ilmaha dugsiga xataa in loogu geeyo literacy and numeracy intuu dugsiga ku jiro wax la sii yara bara macallin dugsiga tagi kara inaan helno iyo waxa way qaybta kale waa primary education oo formal ah oo 6 jir ilaa 12 jirka ah ilma kala jira ayagana aan ugu talagalnay ilma jiro 10 sano jiro 12 sano jiro waligood iskool la geenin ayagana waxbarasho oo xoogaatan ka gedisan oo crash ah oo meesha ilmahan haduu 6 sano ku jiro 4 sano uu ku jiraay ayadana taasna waa diyaarinay iyo secondary schoolkii laakiin waxa soo dhan waxa ka weyn youth maxaa u haynaa Soomaaliya dhalinyaro waxa buuxdo 20 sano dagaal ah socday wadankii dhalinyaradii wax barasho ma helin dhalinyaradaas wiilal waxa buuxa magaalada 16 sano jiro oo waligoodna iskool tagin inaan u helno vocational training ama xirfado inaan barno runta markaan idin sheegay waxa Soomaaliya maanta ka maqan waa xirfad AC-ga haduu ka xumaado hal wiigad wareegaysa xamar inaad heshid qof AC-ga ku sameey koronto yaqaan ma joogo plumber ma joogo Soomaaliya maanta qof PhD history ka qaatay waxa ugu muhiimsan inay hesho koronto yaqaan waxa ugu muhiimsan inay hesho nin plumber ah waxa ugu muhiimsan macnaha xirfadihii asaasiga ah male hadda waxa la keenaa Kenyaati hadda waxaas inay qabtaan ee dhacday oo dibadda laga keenay marka dhalinyarteeni inaan ku train gareyno vocational studies inaan u sameeyno ayadana qorshaha qayb weyn waxa kamid ah oo waxbarashadii dhalinyarada barnaamijkaas caawo dhan hadda ka hadla ma dhameyn kari laana waa document aad u weyn Soomaaliya oo dhan la gaarsiinayo maraaxil kala leh marxalad walba wixii la fulinayo way qoran tahay waxa aan rabno waxa waaye barnaamijkaas qalada laga heli karaa because dad yar oo aniga aan ka koow ahay dhowr qof oo ila shaqeynayso oo shilin gaduudan gacantooda la saarin voluntary basis igula shaqeynayso yaa waxaan ku dhafreyn habeenay maalmo qoreynay hadduu qalad ka soo baxo inta la ikritakareen la su'aal la weydiin lahaa waxaan ka jeclaan lahaa in la idhaho sidaan ka fiicnaan lahayd sidaan ma yeelnaa in la ila fariista nala toosiyo nala hagaajiyo nala saxo هذا إن شاء الله برنامج كاس واحد كرن كرتان هير كهذا وتاجي هاي لندن وها إيمانا هاي سنينتا نينكا سوماليا country representative كا أو يونيسيف إن UK جوجا مركو أقاله ويلا صاحرير وحوير سنينتا لندن كوكو إيمانا سي سولتنا فاندرسكي لأنه وحو أركي أرنتي ده serious نكتا أنا كانوا أوشة جمال والبوش وحن كوير ما بس يحن كري
dadka waa u sheegay hadda caawa gurbaanka ay sacbiskan xamar waa ka diiday in la ii sacbiyo ilmahaas iskool ka galaan xataa in la ii sacbiyo ma rabi because wax la iigu sacbiyo ma samaynin waxaan rabaa ilmahaas inay iskool galaan waxaan kaloo helnay hay-adaan la xiriirnay ilmaha malnutrition ahaya Soomaaliya guriga waxaa dhici karta cunto iyo quraac inaan laga helaynin waxaan helay hay-ad iga kafaala qaada free school meals ilmaha inay iskoolka dhexdiisa cunto lagu siiyo WFP oo ataqaanaan oo dadka isdawamarsiin jirtay waxaan kala saxiixanay Allahu akbar waxaan kala saxiixanay ilmahaas cuntaday cuni lahaayeen markii hore waxay dhaheen ilaa year 4 waxaan ku ma dhici karta ilaa year 8 ilmaha ilaa year 8 cuntaday cuni lahaayeen iskoolka in lagu siiyo free school meal ay helaan kaasna waa naloo ogolaaday laakiin waxaasoo dhanba haddii idinka aadna garab istaagi weysaan ma hirgalayaan intaasaan rabaa inaan idiin soo sheego waxaasoo dhan inay hirgasho waxay ku xiran tahay Soomaalida meel kasta adduunka kaga nool inay qaadato isku si loo qaato oo waxaan loo arka wax Soomaaliyeed oo lagu badbaadinayo ilmaha Soomaaliyeed ilmahaasa bari Soomaaliya dhisay ilmahaasa mutacallinka Soomaaliya waad la socotaan Soomaaliya waxa ku jiro khayraad ah oo dhulka hoostiisa ku jira hadda ma qarsoono adduunka sidoo noogu soo kala orday laakiin yaa soo bixinay yaa ka shaqeynay waa inaan ilmahaas wax barnaa hadda annagoo dhanna aanan u istaagin walaa wasaaradda waxbarasho iyo dawlad yar iyo madaxweyne ma samayn karaan inaan waxaan rabaa aad ila qaadaan ma isla qaadnaa arrintaas ilmaha Soomaaliyeed inaan badbaadino ma ku heshiinay marka waxaan rabaa waxbarashada waa ku dheeraada wax yar caafimaadka in asagana idinkaga sheega iyo meesha ay wax marayaan Soomaaliya maanta caafimaadka heerka uu maraayo maba jiro yaa la yiri maba jiro amal uu maraya sababtoo ah waxaan aad uga shaqeynaynaa arrintan oo hooyooyinka iyo carruurta yar oo 5 sano ka yar oo dhimanay Soomaaliya labadiiba waxay ka noqotay number 1 adduunka dawladii adduunka waa la qaybiyay waxaan ka soo qayb galay shir oo aad u heer sareeyay oo 23 dawlad isugu timid oo lagu qabtay Imaaraadka dawladii waxaa la kala galay qaanad waxaa la galay dawladaha tagay liano mantiqada Soomaaliya ay ku jirto oo caafimaadka waxaa la dhahaa EMRO waa East Mediterranean dawlada waxaa ku jira tagay oo dawladaha Yurub la mid ah oo 100,000 oo hooyo waxaa dhici karta hal inay ka dhimatay oo macnaha levelka Yurub iyo soo gaaray iyo carruurtaba waa dawladaha khaliijka kamid ah Kuwait kamid ah Imaaraadka dawladahaas waxa isku la jirnaa mantiqada EMRO laakiin waa dawlada tagay boxka labaad waxaa la galiyay dawlada aad u dadaalay liano goal jira Millennium Development Goal oo 2015 ka la fiirinayo qof walba siduu u helay dawlada waxaa jira ayagana soo dhow oo dadaalay oo heerkaas aan gaarin laakiin wax badan qabtay Masar kamid ah dawladahaas Suuriya kamid ah aniga waxaan la yaabay Suuriya hadii health macnaha oo la dhahayo macnaha dawlad dib qabta aan u maleynaynay iyo Masar iyo waxay ahaayeen dawladaha meel fiican caafimaadka marka in kaga hadla marka qaanadaasna dawladahaas la geliyay qaanad saddexaad waxaa la geliyay dawlada oo on track ah meeshii laga rabay ma gaarin laakiin progress badan ay sameynayaan dawladahaas waxaa ku jira Afghanistan iyo yaa ku jira Afghanistan waa dawladda horumarka ugu badan sameynaysa oo la yaabay oo hadda on track noqotay Soomaaliya kaligeeda hal qaanad la geliyay waxaa la yiri Soomaaliya no progress at all hoos inay u sii dhacday ma kor ma jira yani waa wax xaqiiqo ah oo jira waa wax laga xumaado sababtoo ah ilmaha Soomaalida waxa ay u dhintaan ma aha wax daawo loo waayay shuban adduunyada shuban meel looga dhinta bale يعني oral rehydration كان أو solution كان المها لا سيه حتى وحاجر وعي حما نبتقلي على أنت إيو هدينا قالي حتى ما هلا العقبة إنه يكون كعيسى ذاتك مركز توحى مدحو كسر داعي العقبة إن هو يدي المها اللي بتبادي حتى العقبة معها معناها المها وحيقولي منا يا شوبان وحيقولي منا جذاعة وأدونك أنت إذا كلا طلال أدركتين لقوا عرب تري waxay u dhimanayaan pneumonia
وحاب سومالي بحال لو دها ان بروكيتا بروكيتا كوسي حماس كده بروكو بولوريتا دي كاسه waxaasay u dhimanayaan ilmahan waxay u dhimanayaan malnutrition waxaan adduunka looga dhimanin ee carruurta Soomaaliyeed u dhimanayaan aniga waxaan ka qayb galay Turkiya yaa qoyska waxa ka dhacay conference weyn oo qoyska macnaha arrimaha qoyska looga hadlayo waxa adduunka oo dhan la casumay wasiiradii arrimaha qoyskana wasaaraddeedii ku jirtaa dabcan mawduuca laga hadlayo wuxuu ahaa internet قال إيه مسلم بقى دلنيرتي إيو عرورتي سوك عيسي دتك إنترنت يعني أدلوك عبادة مركا قويسكا سيداي معناها عرورتو دي مركا يقايا إنترنتكا وبتاجيضا حنحن أرمها سالك هادلاي وزير كستوا استاغي وحو كقدباي ودن كيسا إنترنتكا وحي أنا قال لي سوك قاري واستاغي وحان كويري والله intii meesha joogtay way wada istaageen isla markii contacts in la raadiyo la waxaan ku iri aniga waxaan ku iri idinka internet dhibaato idin ku haya dhalinyaradiina internet dhibaato ku haya laakiin waxaan ku iri aniga wax xanuun badan aan rabaa maanta inay ila shar gareysaan ilmaha Soomaaliyeed kala bar sanadkiisa 5 macnaha birthday-giisa janaad ma gaaraba wuuba dhintay goormu internet galaya waxaan u sheegay aniga waxaan u sheegay problemka haystay inuu yahay caruurtii wayba dhimanayaan ayagoo la isla gaarin inay computer isticmaalaan marka kuwa sidaan ku badbaadin lahaa yaa waxaan iri aniga aan rabaa in la ila kaalmeeyo laakiin problem internet markay noolaadaan bal ha soo gaaraan intii shirka joogtay ruux walba wuu istaagay sidoo noo saacidi lahaa inuu noo fargaray marka waxaan idinkaga wadaa Soomaaliya under 5ka waxaan macna lahayn oo adduunka aan looga dhimanin ayay u dhintaan annaga waxaan bilownay horta talaalkii waxaan sameynay wax la dhaho child health days intii hadda aniga aan joogay gobolka Banaadir oo dhan aan target gareynay 10 maalmood oo talaal ahaan wadnay haddana waa ku celinaynaa in la gaaro ilmaha ugu badan iyo gobolada oo dhan talaalkii uu ka socdaa 6 bilood oo hadda waxaan rabnaa campaign oo talaal ah waxaan ku guuleysanay in la siiyo nooc talaalka pentavalent Soomaaliya ma la siiyo dawladaha Soomaaliya levelkeeda ah oo coverage ka aad u hooseeyo waxa lagu dhahaa marka coverage fiican ka inta lagu siina laakiin waan doodnay hadda training kii aan sameynay hadda April la launch gareynaa oo waxa noo imaanaya oo nin aad u fiican oo WHO mantiqada dhan oo EMRO regional director-ka waa nin Ciraaqi ah Dr. Ala Alwan oo arinta Soomaaliya si personal u qaatay aadan u wada hadalnay horta pentavalent-giina hadda April asagaaba imaanaya maalinta aan fureyno oo waxaan kale u doodaynaa talaalkan oo pneumonia-da qaali waayay marka Soomaaliya iska dhaafay dawladda naga korkorayaan la siinaynin laakiin qolada Gavi yaan hadda marka imaaradka jooga aadan loobi u galnay in April markii midkan aan helno kaas inaan dalbano waxayna dhahayn coverage-keena hoose waxaas laakiin inaan facts hor dhigna war ilmaha Soomaaliya kanu u dhimanaya pneumonia u dhimanaya cunugga Soomaaliya talaalkan hadaad isiinin ma badbaadin karno I hope noo soo duceeyo kaasna inaan helno anaga wixii oo dhinaceena oo lobby aan keeni karno waa dadaalina si aan u dhigno macnaha ilmahaas oo macna la'aanta u dhimanaya waxaan bilownay female health workers in la train gareeyo waxaan rabnaa inaan hadda 200 intii hadda aan joognay 200 aan train gareynay laakiin waxaan rabnaa tuulo kasta inay joogto gabar oo female health worker oo training la siiyay على الأقل waxay badbaadinaysaa cunugaas shubmay waxay siinaysaa ORS-ka macnaha waa waxyaabo yar yar oo la badbaadin kara waxaan rabnaa hadda midwifery curriculum-kii midwifery waa la develop gareey 40 gabdhood oo midwife-nimo baranaya hadda xamar waa bilownay laakiin waxaan rabnaa gobol walba inaan ka furno iskool oo midwifery ah gabadha gobolkaas u dhalatay markii ayada loo tababaray inay midwife noqoto gobolkeeday joogto gabar xamar lagu tababaray ma aadayso gobol kale marka gobol walba inaan ka helno iskoolkii lagu tababari lahaa li'anno midwife-ka waxay badbaadisaa dhakhtarka wuxuusan badbaadinin gabadha midwife-ka ah haddii macnaha hooyadan dhimanaysa ee la socota midwife hadday la xiriirayso wax badan ay badbaadin kartaa inaan marka iskoolaadkii midwifery marka anaga hadda
waxaan sameynay strategic planning oo caafimaadka oo 4 sano ah sanadkan marka work planki sanadkan yaa wax idinka sheegaya sanadkan waxa qorshaha noogu jira hadii Ilaahay inoo fududeeyo Soomaaliya gobolada oo dhan horta primary health care inaan gaarsiino gobol walba hadii Ilaahay idmo oo meel walba aan geyno macnaha at least inuu jiro health center at least inuu joogo qof oo health worker ah ama qof nurse ah gabar umulisa ah inaan gaarsiino tuulo kasta oo Soomaaliya hadii Ilaahay waxaan kaloo sanadkan noo qorshaysan 4 gobol oo gobolada Soomaaliya kamid ah oo kulay sababihii loo doortay ahayd in markaas goboladii oo la gaari karay ay ahaayeen 4 gobol yaa sanadkan insha Allah waxaan rabnaa caafimaad dhameystiran ilaa regional hospital oo district kasta in isbitaal ka furno 4 gobol hadda 4 gobol idin sheegay inaan ka furno oo ay lahaato referral hospital ka ay lahaato ilaa wixii ugu hoose from health post ila referral hospital regional hospital 4 gobol oo Soomaali insha Allah 4 kalena oo ku dareen hadii lacagteeda la helo marka waxaan wadnaa haddaan idin kaga sheekeeyo shaqada Soomaaliya ka socota tiimka wasaaradda caafimaadka joogo agaasimaha guud wasaaradda agaasinka caafimaadka iyo agaasimo waaxeedyaalka haddaan idin kaga sheekay jimca yaa intay subaxii igu soo kalaan subax jimca 8 o'clock intaan waxaan u yeeray intay ii imaadeen waxaan arkay ilaa maghrib inay ila joogeen ayagoo ii dhahaynin jimca waay oo aan isla shaqeynayna strategic planning ka markaan ka shaqeynayna maalmihii aan cusbaa weli oo dawladda la soo dhameystirin yaa subax jimca ah 8 aan wacay ani markaas waa shaqeynay waxaan garan waayay waxaan wacay DG-ga markaan waxaan ogaaday jimca inay tahay shaqeeyna jirin subax horena ay tahay markaas waxaan ku iri waa ka xumahan ku iri subax jimca waay waan 8 o'clock laakiin shaqa meel iiga istaagtay inaan wax ka weydiiyaan rabaa wallahi wuxuu iigu jawaabay subax jimca wax isoo waca yaan u baahnaa tiimka waxaan sameeyaa tiimka wasaaradda caafimaadka marmar jimcooyinka ugu horeeyo dhan waa u yeeri jiray way iimaan jireen isku meel inaan ku qadayno ilaa markaan strategic planning iyo work planning markaan sameeyeen ilaa habeenkii inaan isla joogno shaqada saas aan sula wadno waxaas aan wadno iyo caafimaadkaas aan rabno iyo aniga waxa ii muuqata aan hadda arki karaa Soomaaliya oo qof kasta uu heli kara caafimaad sida adduunka intiisa kale Soomaaliyada aan rabo waa Soomaaliya nabad ah ilmo walba classroom ku jiro wax barasho quality leh baranaayo qof kasta uu tagi kara rug caafimaad marka taasaan anaga ka shaqeynayna oo tiimka caafimaadka igala shaqeynayna disasterka xamar ka jira 600 rug caafimaad xamar ku taala 600 rug caafimaadna 10 laga yaabaa inay taqaatiir ka joogaan sanadkan waxa qorshaha noogu jira inaan sameeyno General Medical Council ki waxa la dhahaa Somali Medical waxaas Association Board inaan sameeyno oo yaa taqtar ah iyo aan taqtar ahayn laysankii macna oo 600 iska furnaanaynin farmashiyaalkii laakiin waxa idin sheegaa waxaas oo dhan lama helayo inta meelahan lala fadhiyo Xasan Sheekh Isaacida isdiriray jawaari iyo waxa isku dhacay madaxweynihii saxaafadana ay qorayso wararkaas inta wararkaas la wado Soomaaliya nabad ma noqonayso marka please waxaan ka codsanaynaa si aan u aragno Soomaaliya oo nabad ah ilmaha iskool dhiganayaan daryaal caafimaad haysato dhalinyaradeedii doorkii looga rabay ay qaadanayaan nagala qayb qaato ma idinku xisaabtami karnaa message-kaas ma la xambaaray marka hadda wax yar waa nasan karaa Axmed Xirsi hadda igu soo celisana youth-kii shaqada iyo shaqaalaha iyo hawlihii kala idinka warama